السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دaawadyaal kusoo dhawaada muuqaalkiina maanta waxaan uga hadli doonaa sidee ayaa loo dhigaa muuqaal soconaya 20 sekin ka badan messengerka ama facebooka. Sida caadada ahba haddii aad isku daydo inaad dhigtid muuqaal dhirir badan ama muuqaal soconaya 1 daqiiqo iyo wax ka badan uu kaa diidi doonaa inaad dhigtid. Haddaba si aan u tijaabino waxaan tegaynaa meesha laga soo geliyo historyga ama photoska iyo video muuqaalka meesha uu ku yaala aad raadinaysaa. Aniga muuqaalka aan rabo inaan ku isticmaalo waa kan, waxaan soconayaa 1 daqiiqo iyo 55 sekin. haddii aan ku dhufto marka ugu horeyso waxaad u jeedaa inuu idhahayo 20 sekin ka badan lama gelin karo ama lama upload gareyn karo. haddaba si aan taas uga fogaado waxaad sameyn kartaa aan soo galo qof asxaabtaada ka mid ah kiisa inaad soo gashid kadibna aad taabatid meesha aad markaad video ama sawir aad u diraysid meesha aad ka soo gelin lahayd oo calaamadan ayaa taabanaysaa. markay sidaan kugu soo baxdo dalrigaaga ayaa lagu geyn doonaa. muuqaalkaaga meesha ku yaala ayaa taqaanaa. muuqaalkayga waa kan 1 daqiiqo iyo 55 sekin. kadib waxaan leeyahay markaa qof u diraysid sunday ayaa dhihi lahayd, laakiin waxaan rabaa inaan saaro historyga. waxaan leeyahay edit markaan dhaho kan haddaad rabtid waxa ay ku qoranaysaa, laakiinse waxaad sameynaysaa your history ay ku dhufanaysaa. meeshaan sunday ama calaamadan kuma dhufanaysid. your history haddaad ku dhufto ama ma weydiin doono in aan yareeyo muuqaalkan si toos ayuu u dhigmi doonaa muuqaalka 1 daqiiqo iyo 55 sekin soconayo. muuqaalka aad rabtid iyo inta daqiiqo soconayo ayaad gelin kartaa. haddaba si aan u hubino waa inaan gadaal u laabtaa. waad u jeedaa hadda historyga ayuu dhigmayaa muuqaalka. waxaan ku raacin doonaa ama waxaan ku dari doonaa haddii aad rabtid inaad qof ka kharisid ama dadka qaar aad ka kharisid muuqaalka aad dhigaysid ama sawirka aad dhigaysid kaliya, waxaad sameyn doontaa sawirka aad rabtid muuqaalka aad rabtid ayaa soo dooranaysaa, settings ayaa ku dhufanaysaa. markii aan ku dhufto who can see your history, haddii uu ku saaran yahay public waad ka qaadaysaa. waxa aad doontid ayaad 3 option ayaad saaranaysaa. haddii aad rabtid asxaabta facebookkaaga kaliya inay arkaan, meeshan ayaa ku dhufanaysaa your friends only. haddii aad rabtid ka khariso qaar ka mid ah asxaabtaada waxaad leedahay hide history from ayaad dooranaysaa. dadka aad rabtid inaad ka kharisid ayaad select gareynaysaa, then apply aad dhahaysaa. marka apply gareysid dadkaas way ka qarsami doonaan ama ma arki doonaan. haddii aad rabin in asxaabtaada ay dhammaan ay wada arkaan, laakiin aad rabtid dad kooban ama asxaabtaada kuugu dhow, waxaad sameyn kartaa custom ayaad dooranaysaa. custom markaad dooratid waxaa kusoo bixi doono list friendskaaga. waxaad sameyn kartaa inaad jeeg saartid. haddaba kuwaan sababka hadaayay hadda aan soo marayna sigiisa waay qof aad dooratid arki doono. halaha kale aad ka tagtid awood uma yeelan doona inay arkaan historygaaga. sidoo kale haddii aad rabtid history ayaa soo dhigtay ama qof saaxiibkaaga sawirkiisa ayaa soo dhigtay, isla qofkaas ayaad rabtaa inaad mention ka dhahdid, waxaad sameyn doontaa calaamadan ayaa ku dhufan doontaa. markaa ku dhufatid calaamadaas meeshaan ay ku qoran tahay mention ayaad dooranaysaa, then saaxiibkaaga magaciisa ayaad waxaa leedahay waad ku qori doontaa halkan. then markaa ku qortid sidaan ayaa kuu soo bixi doonta. qofkan markaad historygaaga upload aad dhahdid ama historygaaga aad saartid iyo history aad ku dhufatid, qofkaas si automatic ayaa loo diri doonaa fariin ah inaad adiga mention gareysay. haddaba muuqaalkiina maanta halkan ayaa kusoo koobi doonaa. haddii aad muuqaalkan ka faa'iiday like saar, la wadaag asxaabtaada. sidaas nabadgelyo.